وياشا baarlamaanada dawlad goboleedka iyo ku-xigeenadooda guddiyada dastuurka ee dawlad goboleedyada dhammaan guddiyada labada guddi ee guddiga madaxa bannaan iyo guddiga baarlamaanka waxay maanta farxad bay ii tahay sababtuna waxa weeye arrintan aad u fadhidaan ee aad iska kaashanaysaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka la xiriirta waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waxaa aniga farxadi gelinaya intii baarlamaanna goboleedyada ama labada guddi ee arrintaasi inay soo ururiyaan oy ka tashadaan laga rabay maanta halkaad ku dhantay waxaan idiin sheegayaa dastuurkani wuxuu socday waa 2005 bay ahayd markii la bilaabay dastuurka muddo dheer ayuu ku wareegayay qaaraddan Afrika oo uu socday waxaan filayaa 13 sano ayuu dastuurkan diyaarintiisa iyo habeyntiisa lagu jiray laakiin waxba kama suurto lacagta ugu badanina way ku baxday waxaan isleeyahay waxaa sabab u ah arrintaasi yacni dadka Soomaalida dastuurkani wuu ka maqnaa ma ay arag wuxuuna ku wareegayay caasimadaha geeska Afrika iyo South Africa meelahaas Afrikadaas ku wareegayay Soomaali gudaheeda marna dastuurkaas Soomaali gudaheeda laguma falanqayn oo dadkii Soomaaliyeed ee wax ku dari lahaa ee uu fikirku ka iman lahaa muu arag laakiin maanta fadhigiinani hal shay buu ina tusaya waxa weeye idinkoo isku duuban idinkoo mid ah idinkoo tala wadaag ah markii aad isu timaadaan waxaan filayaa dastuur samayn ma aha ee waa dib u eegis dastuur arrintu waxa aad ku daraysaan iyo waxa qodobada u baahan in la saxo oo yacni si uu u noqdo dastuur dadka Soomaaliyeed ay ku qancaan dastuur u adeegaya danaha ummadda Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed inuu noqdo wuxuu u baahan yahay oo uu rabay ilaa maanta arrintan oo kale ayuu u baahan waxaan isleeyahay labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxay idinka sugayaan inaad soo ururisaan soo tashataan dadweynaha Soomaaliyeed aad la tashataan oo aad keentaan dastuur macquul noqon kara oo dadka Soomaaliyeed ay ku soo heshiiyeen waxaana weeye kolkaad kulligiin isu wada tagtaa ee aad soo ururisaan wuxuu noqonayaa marka mid labada aqalna ay idinku raacaan oo noqdo marka inuu dadka Soomaaliyeed u gudo waxaan isleeyahay dastuur wuxuu u baahan yahay mar kastaba uu ku dhammaadaa codka dadweynaha yacni labada aqal wixii aad keentaan yacni waa ansixinayaan wey laakiin micnaheedu ma aha inuu baarlamaanku halkaa inuu dastuurka halkaa ku dhammaystirmay micnaheedu ma aha ee wuxuu u baahan yahay cod dadweyne oo qaata ayuu u baahan yahay waynu ognahay dalkeennu uu kala firirsan yahay waxaynu u baahannahay nabad baynu u baahannahay waxaynu u baahannahay
midnimaynu u baahan markaa ayuu noqonayaa dastuur sharci ah marka ay dadweynaha Soomaaliyeed cod ku gudbiyaan waa arrin markaasi u baahan awoodii arrimaha ka shaqayn lahayd waa dadweynaha Soomaaliyeed oo aynu dareensiino oo aynu innaga oo ah siyaasiyiintii aynu nimaadno midnimo inaga dhalata innaga waxaan isleeyahay dawla kuma noqonayno reehda ma ku noqonayno haddaynu waxayn doonnaa samayno kuma noqonayno sababtuna waa maxay aan arrintaa u leedahay reer hebel siyaasadii kama dhaxayso ma ka dhaxayso mana ka dhaxaynayso taariikhda aadamaha ee aynu soo aragnayna arrintaasi marna suurtagal ma noqon waxaynu rabnaa innagoo Soomaali ah innagoo mid ah innagoo isku niyad ah innagoo midaysan inaynu ku dhaqaaqno sidii aynu uga bixi lahayn kala googo'a iyo kala qoqobnaanta oo aynu u noqon lahayn dad mida dastuurku waa heshiis dadku ay ku heshiiyaan waa heshiis ay dadku hawlahooda ku fushanayaan oo si xaqa loogu dhaqmo kolkaa waxaynu u baahannahay inay noqoto inaynu mid ahaano oo inagoo mida aynu samaysano dastuurkeenna aynu ka fikirno midnimada dalkeenna aynu ka fikirno nabaddiisa aynu ka fikirno mid Soomaaliya waxaan isleeyahay caalamka taageero waa ka rabnaa kama go'niyo laakiin waxaan rabnaa in nalagu taageero rabitaanka yaga inaan nalagu taageerin kala googo ayaga iyo kala fogaanshaha yaga inaan nalagu taageerin ayaan u baahannahay oo caalamka aan ka codsanaynaa inay nagu taageeraan midnimo iyo wadajir ee kala qaybsanaan ayna nagu taageerin waxba nama tarayso taageerada inagoo kala qaybsan layna siinaya waxayna taraysaa ma jirto waxyeelay inoole kolka caalamkana waxaan ka codsanaynaa inay nagu taageeraan midnimo iyo wadajir caalamkana intaas ayaan leeyahay innaga intiinani waxaanu idinka sugaynaa oon aada ugu faraxsannahay inaydun isu timaadeen oo tala guud inaad samaysaan aad ka fikirteen kolkaa dastuurkan dib u eegistiisa labada guddi iyo wasaaradda oo fududeeya ayaan wadajirkooda idinkuna aad ku taageertaan ood gacan ku siisaan oo aad ku kaalmaysaan ayaan idinka baahnay intaa kadib waxaan filayaa khudbo dheer kumana soo talagelin intaas kolkaan idhaahdo waxaan leeyahay shirku waa furan yahay aad iyo aad baad mahadsantihiin shaqo fiican